halkan waa taliska ciidanka booliiska Soomaaliya goordhow waxaa sii jira si wada jir ah ugu qabtay wasiir dowlaha wasaaradda amniga Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaana ay sheegeen inaanay jirin wararka sheegaya in xarunta baarlamaanka Soomaaliya ay la wareegeen ciidamo gaar ah waxa ay xuseen in ciidamadaasi ay yihiin kuwa booliis ah oo ay wasaaradda amniga ku amartay in halkaasi la geeyo si loo adkeeyo amniga baarlamaanka warar ayaa soo baxayay oo sheegaya in ciidamo halka la dhigay isla markaana baarlamaanka ay joogaan ciidamo sida uu sheegay gudoomiye Jawaari oo baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye u ahna waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha in halka ciidamo uu geeyay balse shir jiraayid uu goordhow halkan uu ku qabtay wasiir dowlaha wasaaradda amniga Xasan Macalin Xuseen waxa uu ku beeniyay wararkaasi oo sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyay yihiin ciidamo caadi ah oo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya loona geeyay in amniga ay sugaan arrintaas arrin waxba kama jiraan awaaye barlamaan la qabsaday ma jiro ciidanka booliiska Soomaaliyeed annagoo maxaa la yiraahdaa wasaaradda amniga oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga ahna wasiir dowlaha wasaaradda amniga si loo sugo maxaa la yiraahdaa nabadgelyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku amaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu koow ka yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku shiro la adkeeyo sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd 8 ama 2 saac labadii duhurnimo ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed u yeeray waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yiraahdaa xildhibaanada amnigooda xasilintooda iyo nabadgelyadooda marka ujeedada intaas ayay ahayd dib kale ma jiro maxaa la yiraahdaa waana shaqadeena waay booliiskana wuxuu ka mid yahay hay'adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada marka si khalad ah ayaan loo fahmin dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay waa amarka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliyeed booliiskana uu hoos tago dhankiisa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashiir ayaa hoosta ka xariiqay inay adkeynayaan amniga baarlamaanka xildhibaanaduna ay ku yihiin kuwa qaali ah taas iyadoo laga duulayana halkaas la geeyay ciidamo booliis ah oo marka lagu xoojinayay kuwii hore u joogay sida uu hadalka u dhigay siyaasadda taagan oo hadda socota waxa waajib noqotay ciidanka booliiska inuu tallaabo qaado kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay ciidanka aanu keenno waa ciidan takhasus leh waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas ku soo xoojino ciidan kaloo birmada intii aanu islayn waa laga maarmi karaan oonu ka saarno waxay naga tahay xoojin teeda kaleeto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega maaha ciidankan wuxuu adeegaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xildhibaanaduna waa xildhibaanadii mathalay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay waajib muqaddas ah tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgelyo ay ku jirto ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya maxaa ciidankan meesha looga qaaday ciidanka tan meesha laga qaaday ciidan military lama keenin ciidan nisaa lama keenin ciidan amisom lama keenin ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah waxaan oran karaa marka taas waa wax internal operation ah ama arrin booliiska dhexdiisa khusayso inaanu awood u leenahay inaanu ku xoojino meeshaanu rabno meesha hawlgallada aanu samaynayno waa sidoo kale in meel isugu tago taasaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiiyo Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay TV Universal Muqdisho